kulanti wanaagsan akhyaarta wadanaga daawanaysa waxaad ku soo dhawaataan warkii saacada oo idinkaga imaanaya TV-ga Soomaali Saad xaruntiisa magaalada Muqdisho. qodobada wararka saacada ugu waaweyn daawadayaal waxaa ka mid noqonaya baarlamaanka qaranka Soomaaliya ayaa maanta kulan waxa uu ku leeyahay xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho. kulanka baarlamaanka ayaa maanta waxaa la horgeyn doonaa golaha wasiirada uu dhawaan soo dhisay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid waxaana baarlamaanka maanta codka kalsoonida ay u qaadan doonaan golaha wasiirada ee dhawaan la soo magacaabay. xildhibaano badan oo kamid ah baarlamaanka Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyay kulamo kala duwan ku qaadanayay gudaha caasimadda ayaa qaar kamid ah waxay diideen 10 wasiir ee uu soo dhisay ra'iisul wasaaraha halka qaar kalena ay ku taliyeen in la ansixiyo wasiiradaasi si waajibaadka adag ee horyaala ay u gutaan. hase yeeshee baarlamaanka ayaa maanta lagu sugayaa in codka uu siiyo amaba uu u diido golaha wasiirada ee dhawaan la soo magacaabay. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay waxa uu magaalada Muqdisho kulan kula qaatay qaar kamid ah madaxda idaacadaha Muqdisho iyo taftariyaasha ka howlgala idaacadaha ku yaala iyo TV-yada gudaha caasimadda Muqdisho. ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu kala hadlay saxaafadii uu la qaatay kulanka maalintii shalay ahayd sida loo joojin karo tacadiyada inta badan loo geysanayo saxaafadda Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha Muqdisho. madaxweynaha ayaa ugu horeyntii waxa uu khudbad ka dhageystay qaar kamid ah taftariyaasha iyo milkiilayaasha idaacadaha Muqdisho waxaana uu sheegay in sanadkan 2012 Muqdisho lagu dilay 18 wariye kaas oo kii ugu dambeeyay uu ahaa wariye Maxamed Maxamuud Tuuryare oo kooxo hubeysan ay ku dileen degmada wadajir ee magaalada Muqdisho. waxaana intaas kadib madaxweynaha uu sheegay in uu wax ka qaban doono dilalka iyo dhibaatooyinka lagu hayo saxaafadda isla markaana uu u saaray guddi heer caalami ah oo soo saaray dhibaatooyinka lagu hayo saxaafadda Soomaaliyeed. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu tilmaamay in dawladdiisa ay tahay dawladdii ugu horeysay oo la shirto qaar kamid ah wariyaasha Muqdisho isla markaana ka xanuunsata dhibaatada lagu hayo saxaafadda Soomaaliya. banaanbax balaaran oo lagu taageerayo golaha wasiirada uu dhawaan soo dhisay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka dhacay xaafado badan oo kamid ah Muqdisho. dibadbaxa ayaa waxaa dhigaya qaar kamid ah shacabka Muqdisho, mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo xildhibaano kamid ah baarlamaanka waxaana dhamaantoodba ay taageersan yihiin golaha wasiirada ee dhawaan la soo magacaabay. dibadbaxayaasha ayaa waxa ay wataan boorar ay ku qoran yihiin sawirada qaar kamid ah wasiirada la soo magacaabay iyo ra'iisul wasaaraha iyagoo dalbanaya in baarlamaanka maanta uu codka kalsoonida ah siiyo golaha wasiirada la soo magacaabay. ugu dambeyntiina howlgal balaaran oo dad badan lagu soo qabtay ayaa ciidamo kamid ah kuwa dawladda Soomaaliya waxay ka sameeyeen magaalooyinka Beledweyne iyo Baydhabo. howlgalka oo ay fuliyeen ciidamo gaar ah oo ka tirsan dawladda ayaa xalay waxay ka dhaceen xaafado badan oo kamid ah magaalooyinka Beledweyne iyo Baydhabo waxaana ciidamada sameynaya howlgalka ay ku soo qabteen dad badan oo ay ku tilmaameen in amni darri ay ka wadaan magaalooyinkaasi. waxaa la tilmaamay in howlgalka ilaa iminka uu ka soconayo magaalooyinkaasi isla markaana saraakiil ka tirsan ciidanka dawladda ay tilmaameen in la sii wadi doono ilaa laga suulinayo dadka amni darrida ka wada magaalooyinka Beledweyne iyo Baydhabo. guud ahaan daawadayaal warkii saacada oo xilligan ka daawanayseen TV-ga Soomaali Saad xaruntiisa magaalada Muqdisho. warkii saacada waa naga intaa waxaa idin la socodsiinaysay anigoo Qaali Axmed Macalin. tan iyo kulan dambe inta aan ku kulmi doono war kalnamida waxaan idinkaga tagayaa sidaas nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Samsa TV.